بسم الله الرحمن الرحيم waxaan kacsi u dirayaa dhammaan dadka reer Puntland xukuumad baarlamaan iyo shacab geeridii naxdinta lahayd ee maanta uu ku geeriyooday gudoomiyihii gobolka Mudug staafkiisii iyo walaalkiis iyo dad kale oo rayid ah geerin xanuun badan bay ahayd geeri waan wada sugaynaa laakiin tan waxay ahayd geeri aad u xanuun badan oo lala beegsaday madaxda reer Puntland ee u halgamaysay u shaqeynaysay bulshadooda sida u heli lahayd nabad iyo deganaansho waxaan marka ugu horeysa tacsidaas si gaar ah u dirayaa eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday gudoomiyaha walaalkiis iyo qaraabadiisa kale ee halkaas ku sugnayd waxaan si gaar ah tacsi ugu dirayaa xildhibaan Sanyare oo runtii saaxiibkay ah walaalkiisna ah aad waxaan uga xumahay falkaas maanta dhacay muddo 2 bilood ka yar waa falkii labaad oo lala beegsaday gudoomiyihii labaad ee gobolka Mudug horena loola beegsaday gudoomiyihii gobolka Nugaal waxaan jeclahay laba fariimood inaan halka diro fariinta hore waxaan u dirayaa argagixisada iyo inta la nacay Puntland horumarka waxaan u xaqiijinayaa dadka reer Puntland xukuumad iyo shacabba inay marna aysan filalka fuxashnimada ee dhacaya aysan wax u dhimaynin hadafkooda ah inay ummadooda shaqeeyaan waxaan u sheegayaa inaan dadka waxa ka dambeeyay ay mutaysan doonaan ciqaab meel kasta ay joogaan aan wada batagi doono waxaan haynaa raadad badan waxa la hayaa dad fara badan oo dilkii hore ee Nugaal ka dhacay qayb ka ahaa waxa hadda lagu daba jiraa falalka halka ka dhacay ama Boosaaso ama Gaalkacyo waxaad mar dhow arki doontaan maxkamadayntooda iyo iyagoo meel fagaara lagu dili doona hadii Ilaahay waan u aareynaa mas'uuliyiinta reer Puntland ee ummadooda u shaqeynaysay ee lala beegsaday dilka waxaan halka fariin uga dirayaa shacabka Puntland runtii Puntland waxa ku socda weerar hadafyo kala duwan leh dawladnimadooda diidan deganaanshahooda diidan horumarkooda diidan wajiyo kala duwan leh waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Puntland inay garab istaagaan dawladooda waxay dawladooda diyaar u tahay cid kasta waji kasta ay leedahay oo mustaqbalkooda danahooda diidan inay gacan ay ku qabato waxaan ballan qaadaynaa anoo ku hadlaya magaca dawladda inaan falalkaas iyo kuwa la midka ah aan uga hortagi doono si aan hagargasho lahayn waxaad ogtihiin muddadii u dambeysay Puntland waxay waday qorshe amni oo ka duwan kuwii hore waxay daba joogtay unugyada ku dhuumaalaysanaya magaalooyinka waaweyn oo rabay inay ummadda cabsi geliyaan baadaan horumarkoodana ay halis geliyaan waxaad ogtihiin falal aad u fara badan in Boosaaso lagu qabtay waxaad ogtihiin kuwa in lagu dilay waxaa socday Gaalkacyo oo xaqiiqo ah cid walba ay qaraysaa muddadii u dambeysay ciidamada Puntland oo kala har lahayn iyo maamulkooda oo gudoomiyaha ay hadda la dilay oo hogaaminayay in ay horumar weyn ka sameeyaan dhinaca amniga inay xasiloonadii soo celiyaan in muddooyinkii hadda u dambeeyay intii howlgalladaas dhacay fal cid lagu dilo oo yaraaday markii la arkay in hawshu si wanaag u socoto istaraatiijiyada ah madaxa laga dilaa oo inay gudoomiyaasha dilaan ah waa la garanay waxay ogaan doonaan iyagana waajibkooda wayna heli doonaan mar dhow waxaan rabaa inaan shacabka Puntland halka fariin uga diro waxaan ka xumahay Soomaaliya waxay ku jirtaa soo kabasho waxay ka soo kabanaysaa muddo dheer oo maamul la'aan iyo kala dambeyn la'aan iyo hay'adihii amniga oo ay ka xoog bateen dad qasbadayaal ah oo sharwadayaal ah oo shabaab iyo shayaadiin kale ah waxaan aad uga xumahay dawladaha marar badan yiraahdo waxaan taageernaa Soomaaliya sidee nabad iyo xasilooni u heli lahayd waxaan ka xunnahay in aanan taageero ku saabsan dhinaca amniga aan ka helin ama tababar ciidan
ama qalabayn ama isgarab istaag waxaan aad ula yaabanahay goorta ay dhihi doonaan waxbaa tareena ama markii ay meelaha hadda amni darrada oo kale ay noqoto ayay doonayaan waxaan maalin walba maqalnaa wadamada Soomaaliya dhaha saaxiib baa la nahay iyo hay-adaha Soomaaliya ku howlan inay yiraahdaan malaayiin boqolaal malaayiin baa waxa ku baxda amniga oo ay inta badan ay ku bixiyaan deegaanada koonfurta oo amni darraduna ay ka sii siyaadayso waxaa shaki naga galay inay u muuqato waxaan waxayna tareena goortarna la burburiyo oo ammaankiina la baabi'iyo oo noloshiina wax loo dhimo waxaan halka uga baaqayaa bulshada reer Puntland inay cid wax ka sugo dawlad ahaan waan isku tashanay ahmiyadeena koowaad waxaan gelinay ciidamada waxaan kor u qaadnay tababaradooda waxaan kor u qaadaynaa mushaharooyinkooda waxaan diyaar u nahay waxa Puntland ay haysato inaan u wajahno sidii dadkan xasilooni iyo nabad u helay waxaan ka codsanayaa dadka reer Puntland inay dawladooda gacan siiyaan dadaalada socday gacan ku siiyaan waxaa muuqata dadka reer Puntland inay yihiin dad markay dhibaato dhacdo isku tashada arrinta maalmaha u dambaysa dhacaysa oo magaalooyinkii waaweynaa lagu beegsaday oo kii u dambeeyo Boosaaso sidaas oo kale isagoo la isku xirxirayo loo qorsheeyay in mas'uuliyiin lagu dilo la fashiliyay oo garow lagu dilay saad ogtihiin oo gaalkacay maanta ka dhacay waa fariin dadka reer Puntland u socota waxaan u sheegayaa dadka reer Puntland inay nabadgelyadooda ay ka shaqeeyaan inay dawladooda gacan siiyaan inay ciidamadooda ay garab siiyaan waxaan inay ballan qaadaynaa inta awoodeen ay socoto inaan cidna uga baqin oo shaqeynta bulshadeena